hal dhibic 7 FM codka bulshada Soomaalida Mareykanka waxa kala aad nagala socotaan baraha bulshada dhinaca Facebook-ga, Twitter-ka, Instagram-ka iyo waliba meelaha kale ay kamid yihiin sida raadiyaha, gaariga iyo waliba telefoonka gacanta. واتهاي ما أنت أكله طبعا داوديال يود جيستيال با وحد نوجا برتين برنامجكي محا عصب مركا وحا عصب طبعا ما أنت وحنيدين هاينا برنامج كوساب سن لنا عاس يو جناحسجا وحا مرت شرف نوعه أو ما أنت برنامجك كعسومن عبد الرشيد عمر أو آدي ولي عان وآدنا عيب كجريها أيو ريال استيت مدينة استيت waxaan rajaynaynaa dabcan barnaamijkan inaad kaga bogan doontaan waraysiga gaarka ah ee aanu la yeelanay madaxa sare ee real estate aan idhaahdo ama maamulaha hadba sida aad u taqaanaanba Rashid ugu horeyn aan ku soo dhaweeyay studio-ga haya Rashid soo dhawo oo maasantay Kowsar dadka Soomaalida meel walba ay joogaan oo la dhageysanayana waan salaamayaa Ramadaan Mubarak aad baa u mahadsantihiin inaad meeshan maanta igu casuunteen واتهاي sidoo kale dabcan daawadayaal iyo dhageystayaal ba barnaamijkan xiiso gaar ah ayuu leeyahay waxaan rajaynaynaa inaad is wada gaarsiisaan si mugta iyo waliba waxa gudihiisa ku jira aad uga wada bogataan daawadayaasha nagala socda dhinaca Facebook-ga waxaan leenahay barnaamijka isgaarsiya ama share gareeya si dad badan oo barnaamijkan muhiimadiisa u baahan ay markaa uga wada faa'iideystaan haddii aan u guda galo dhinaca Rashid oo ah markaa khabiir aad iyo aad caan ugu ah ama aad xog badan ka haya ama kuba dhex jiraba dhinaca kala iibka guryaha Rashid muddo badan ba dabcan sideen wada ognahay ku soo dhex jirtay hawshan waana waxaad khibrad u leedahay bal waxaasi dadkayna daawanaya iyo kuwayna dhageysanayaaba ay u fahmaan wax qabadkiina waxa dib noogu yara laabataa طبعا wax badan baad soo qabateen oo anagu wada ognahay laakiin dadweynaha rabnaa inay nala wadaagaan waxoogaa yar oo guud mar ku soo samee waxyaabaha aad soo qabateen horta anagu ilaa 16 sano oo la soo dhaafay state-ka Minnesota dhinaca guryaha waxa ku saabsan real estate-ka oo dhan baan ka shaqeynaynay waxyaalo badan oo aan dadka la qabanay ama masaajidada ugu waaweyn oo ugu kasoo kamid yahay aan la gadnay masaajidada business-yaasha waaweyn oo aan la gadnay ilaa intaas oo boqol oo qof oo guryo la gadnay ayaguna way jiraan marka adiga wixii real estate ku saabsan baan anagu ka shaqeynaynay 16 sano oo la soo dhaafay dadku sidii og yihiin real estate-ka waxyaalo badan baa dhacay 16 sano anagu business-ka markii aan bilownay real estate-ka maanta meeshuu marayay dan waxaa dhacay waxa la dhaho recession-ka oo guryihii ayaga oo cirka maraya inay dhulka kusoo dhacaan qiimihii baa hoos soo dhacay haddana maantana recession-kii dhacay waqtigaas meeshii ay marayeen buu maraya marka haddana guryihii jabay baa haddana kor u kacay aad isweydaar wey waa taag idinku marka arrimaha saan oo kala ah sida wax uga qabataan sida bulshada ula macaamiishaan sida ula shaqeysaan guud ahaan waliba idinku waan ognahay 70% inaad tihiin dadka u shaqeeya bulshada Soomaalida oo guryaha kala iibkooda iyo arrimaha ku hawlan dad badan baa real estate aan fahmay oo malaha dibadaha inaga maqan oo iyaguna inaga daawanaya dhinacaasi Facebook-ga marka real estate horta company ahaan waa company kala iibiyo guryaha iibiyana siina iibiya waxaan sameynaa anagu haddii wixii real estate dan oo ku saabsan haddii aad rabto maanta in guri lagu dhiso dhulkii baan kula gadaynaa ama dhulkii markii lagula gado guriga baa lagula dhisayaa lacagtii guriga ku qaadanaysay baan kula raadinaynaa haddii la rabo in masaajid la dhiso masaajidka dhulkii baan la raadinaynaa waa la dhisaynaa so wixii real estate dan ku saabsan oo ama dhulkii lagu dhisayo ama guri dhisan wax walba oo real estate ku saabsan baan qabanaa ka shaqeysan aad iyo aad waa arrin aad waliba muhiim u ah daawadayaasha iyo waliba dhageystayaasheedaba waxaan rajaynaynaa inay barnaamijkan si weyn uga wada faa'iidi doonaan inagoo maanta fursad qaali ah ku helnay maamulka sare ama madaxa sare ee marka real estate dhinaca waliba Soomaalidana aad iyo aad ay dad badan u yaqaanaan
intaan aqoona dabcan maanta ayaynu baraynaa waa cabdirashiid cumar dabcan meelaha lagala soo xiriiri doono iyo waxaas waan isku dambaynaynaa laakiin iminka waxa aan sii gudagalaynaa bal ilaa iyo hadda waxaa jira waxyaabo badan oo aad qabateen dad badan oo aan guryo haysan oo markaa maanta guryaala oo guryihiina degan marka sidee uga faa'iidaystaan Soomaalidu real estate ma ku xidhan yihiin horta real estate-ka Soomaalidu hadda waa ilmihii hadda ku dhashay Mareykanka baa hadda jaamacadaha graduate garaynaya soo Soomaalidu hadda dadka inta badan 20 sano iyo ka badan dad baa jooga marka real estate-ka na waxa waaye markaan real estate wuxuu leeyahay waqtiyo waqtiyadaas uu leeyahay hadda recessionka markuu dhacay dadka Soomaalida dib badan baa gaaray because dad oo waxaa jiray oo guryihii iyagoo kiraysanaya lagu korgatay taas khasaare ahayd laakiin also wixii markay dib dhacdo faa'iidana dibtii dhacda marka qaarkood faa'iidana waa laga helaa marka Soomaalida faa'iidada ay ka faa'iidaysteen oo dad badan ilaa 600 oo qof gaaraya aan guryo la gadnay recessionkii markii uu dhacay waxaa jirta dad maalintii sanadkii 2010kii guri ku gatay 120,000 inay ku gateen laga yaabaa 120,000 guriga lagu gatay maanta wuxuu marayaa 300,000 so dadka saas uga faa'iidaan marka haddaad fiiriso 600 oo qof oo guryo gatay recessionkii maanta macnaha waa dad macnaha noloshooda equity badan ay u kortay oo maanta maaragtay maxaa la dhahaa middle class family camal ay u socdaan dibtu markii haddaan ka hadalno hadda tan dhacaysa hadda xaaladdu meeshay maraysa haddaan wax yar aan ka hadalno haddana dhib kalaa jirta dhibta kaloo jirta taas waa faa'iidadii laakiin dhibta hadda jirta waxay tahay dadka markii oo recessionku dhacay oo dhibta dhacday dadka waxaan recession garanayn Mareykanka sanadku markuu ahaa 2006kii ilaa 2013 dhammaadkiisii waxaa jira waxa la dhaho recession ka dhacay oo effect gareeyay real estate si xun u effect gareeyay marka dhibta hadda jirta oo dadka especially Soomaalida aad iyo aad u haysata hadda waxa waaye dad badan oo investor ah oo Mareykan u badan baa guryo badan gatay oo lacag yar ku gatay markay lacagtii yar ay ku gateen dad Soomaali ay guryo ka kireeyeen hadda maadaama lacagtii guryo aad u kaceen oo guryo meeshii ugu sarreysay ay marayaan dadkii investorka ahaa marka waxay sameynayaan marka guryihii dadkii markii uu ka dhaco waqtigii loogu talagalay ay guriga deganaanayeen warqad baa loo soo tuuraya 30 days waxaa leeyahay 30 days guriga uu marka 30 day qofkii oo ii sheeg sagaal ama shan ama ilmo badan haysta oo ilmo iskuul ugu jiraan easy ma aha inuu qofkii ku guuro marka dhibta ugu badan hadda aan aragno waxa waaye waa dadkii oo guryihii lagu kor gadanayo sida ogtaana wixii markaa guryihii hadda maadaama ay qaali noqdeen dadkii guryahaas raqiiska u gatay dadkii Soomaalida lagu kor gadooya marka maadaama dadkii Soomaalida hadda dhibtaas haysto oo guryihii lagu kor gadanayo annagu marka waxaan aan bilownay in aan sidii dadkaas loo caawin lahaa inaan tala ka keeno maadaama annagu ilaa dhibtii horena aan aragnay haddana dhibtaan ay timid marka annagu hadda waxaan dadka ogeysiinaynaa inay ogaadaan inay leeyihiin waxa la dhaho options so qofka hadduu shaqeeyo waxay kala dooran karaan marka qof dadkan guriga laga saarayo inay ogaadaan inay guri ayagu ay leeyihiin oo ay gadan karaan oo macnaha ay awoodaan ay gadan karaan qofkii xataa aan haysan oo iska danyar oo xataa aan haysan lacagta down payment-ga waxa la dhaho ama lacagta laga dhigayo carbuunta waxaan haynaa dadka maxaa la dhahaa grant waxa la dhaho oo aan laga rabin oo ilaa 10,000 ama 10,000 gaaraysa oo qofka laga dhigayo so qofka hadda haddii familkii guriga laga saarayo oo ilmihii qaar shaqeeyaan oo familkii xataa lacag soo gasho oo laakiin ayna haysan waxaa la dhaho lacagta down payment-ga lacagtii down payment-ga aan ka caawinaynaa xataa creditkii xataa haddii wax ka haysta creditkii aan ka caawinaynaa as long as ay awoodaan inay guri ayagu iska bixin karaan ay awoodaan
lacagtii waa laga dhigayaa guri ay leeyihiin oo ayagu awoodooda u leeyihiin oo ilmahooda ku korsanayaan oo ilmihii iskool fiican aadayaan bay gadan karaan ma aha in maaragtay maalin walba maaragtay guryihii inta lagu korgato alaabtii banaanka loo dhigo midda labaad saa u socotiin hadda siyaasadda maraykanka wax weyn baa iska bedelay dadka soomaalida especially statekan Minnesota hadda dadka si xun baa loola dhaqmaya soomaalida marka qaarkood oo dadkii waxay isleeyihiin macnaha sharciga xataa kuma qabanayan marka qaarkood isleeyihiin marka dhibtaasoo dhan baa jirta marka dadku inay ogaadaan waaye inayna ku talagalaan waaye inay ayagu ay lugahooda ku istaagi karaan ayagu ay gadan karaan waxay leeyihiin maraykanka dhulka markaa gadatay dhulkaaga adaa iskale wax maaragtay ku qasi kara ama kusoo faragelin kara male midda labaad anaku hadda ilmihii inta ku dhashay waa wada shaqeeyaan familkii ilmihii baa xataa shaqeyn kara oo caawin kara marka inay ogaadaan inay ayagu wax ay gadan karaan oo ay lugahooda ku istaagi karaan inay jiraan cabdirashiidow waxaa jira in dadka soomaaliyeed ee tirada badan ee weliba statekan aadka u degan ay yihiin dadka u badan weliba dadka low income-ka loo yaqaano ama dhaqaalahooda hooseeyo marka iyadoo taa la eegayo waxaa jirta in guryo aada u tiro badan oo wada ciriiriya ay wada degan yihiin family aada u tiro badan oo xataa qolalku mararka qaar aan ku filayn wixii dhacdooyinkii ugu dambeeyey xataa isla bishan dhacayay waxay ahayd in caruur kasoo daadanayaan guryaha oo ay ahayd securityka guriga ama qaab dhismeedka loogu talagalay inaanu ahayn mid macna markaa aada u sareeya markaad eegto dad kale oo waxaa jira iyaguna Soomaali ah oo iyaguna lacagtooda la baxa oo lacag $1,800 ama $2,000 guri ku bixinaya marka income way haystaan qaar badan lacagtina way iska bixinayaan laakiin waxaan haysan fursadda hadda aad haysaan oo kale ayaanay garanayn meel ay u mari lahaayeen marka dadkaas oo kale qaabkay ula shaqaysaan sidee u soo gacan qabataan warta waxa dhibaatada ugu weyn oo guryaha hadda ka jirta waxa waaye dadka Soomaalida horta information wax la dhaho oo fiican ma haystaan informationkana marka information raadinayso wixii waa inaad qof aqoon ula tagta for example adigu haddaad maxkamad aadaysid waa inaad lawyer oo expert ku ah waxa adiga oo dibtaas ku haysato waa inaad wadata marka anaga Soomaalidana dhaqankeedana xoogaa qof walba iska weydiinaysa markii dib ku haysto qof walba weydiinaysa oo intee ka sameeya intee ka maraa marka qaarkood waxaa laga yaabaa qofka advice-kii uu rabay inuuna helin wixii xaqiiqadii sidii uu rabay inuuna u helin dadka guryaha Soomaalida dib weyn baa ka haysta marka annaga dhibtii maadaama qofku wixii ku jiray aan nahay dadkii mar wax walba ay meesha ugu dambeyso marayaan oo dadkii eviction recordkii almost loo gelin rabo guryo la-aan ku dhacday dad oo ehladooda ay kor degan yihiin markaas annaga wixii na soo gaaraan laakiin marka qaarkood hadday qofku na soo waco markuu arko in gurigii waraaq loo soo diray oo laga saarayo ama uu rabo inuu guri gato hawsha markuu bilaabi rabo inuu annagana soo waco waaye uu nala hadlo marka dad badan oo gurigii laga saarayay oo warqadda inta 30 la siiyey intaasoo qof baan gurigii xataa la gadan gurigii ay deganaayeen laftirkiisii aan la gadno ayagoo xataa alaabtooda meel looga rabay marka waxa again qof dadku haddayn xataa wixii oo lagu caawinaya ayna haysan oo lacagta iska dhigi karin lacag waxaan haynaa ilaa 10 kun oo qofka laga rabin haddii oo 3 sano guriga deganaada laga rabin wax interest lahayn marka qofka dadka waxaan aan ogeysiinaynaa in haddii wax dhib guri kaa haysto uu jiro inaad nala soo xiriirto markaas aad nala soo xiriirto hawsha intayna maaragtay adiga faraha ka bixin oo maaragtay qofka guriga laga saarin oo waraaqa lagu soo dirin midda labaad qofka eviction recordka haddii loo geliyo xataa hadhow guri kale uu degi karo ma laga kareynayo recordkay kaa hadlaynaysaa marka waa dhib weyn oo qofka soo gaaraysa marka anaku maadaama oo haddaan ku noqdo siyaasadda Maraykanka hadda oo dhacday madaxweynahan cusub iyo waxaan hadda dhacayn effect weyn bay u keentay dadka Soomaaliyeed hadda waxaaba naloo arkaba dadkii caddaanka oo marka inay maaragtay ay intaan wixii ayna meesha maaragtay hawshu intiina gacmaha ka bixin inay
nasoo wacaan ama qof wixii garanaya xataa dayn anaka nasoo wacin qof wixii expert ku ah oo jidkii ay mari lahaayeen marinaya oo wixii xaqiiqada siday tahay runta u sheegaya inay u tagaan waa tahay dabcan sida aanu idiin wada sheegnay daawadayaal iyo dhageystayaalba waa barnaamij gaar ah oo waxaa marti noogu ah rashiid cumar oo ah madaxa sare ee real estate weliba in badan khibrad u leh iyo waayo aragnimo dhinaca kala iibka guryaha waan rajaynaynaa daawadayaal inaad iyo dhageystayaalba fursadan qaaliga aad iyo aad uga faa'iidaysataan waa jaanis aada muhiim u ah qof guri aan haysan xataa lacagta u dhigi lahaana in laga dhigayo xataa oo uu markaaba gurigaasi noqonayo guri isagu iska leeyahay siyaasadda dhinaceeda iyo saameynta soomaalidana waa arrin muhiimadeeda laho dhinaca waxaa loo yaqaan dad mashaqaystayaala oo markaas low income-yada aada iyo aada u degan marka tana fursad weyn bay tahay inaad guri adigu aada leedahay kolleyba haddaad lacag bixinayso guri aada leedahay aada lacagtii aad ku bixisid waan rajaynaynaa inaad aada iyo aad barnaamijka uga wada faa'iidi doontaan haddii aan kusii socdo su-aalaha maanta aan ugu talagalnay inaan uga wada faa'iidaysano barnaamijkeenan marka familigu waxaa lagu xidhayaa dabcan maadaama dhown baymankii laga dhigayo shaqada miyaa lagu xidhaya wax sanawaad matalan inaad 2 sano ka shaqaysay inaad 1 sano ka shaqaysay waxyaaba noocaasa su-aasha horta su-aal fiican waayo qofka horta markuu guri gadanayo saa ogtihiin oo macnaha markii hadda dhibta guryaha dhacday sharciyadii waa la adkeeyey qofka markuu guriga gadanayo because markii hore qofkaan guri awoodin uuna gadan karin lacaguna iska bixin karin baa guri gadan karin hadda ma jirto hadda sharcigu siduu adag yahay qofku waa inuu proof gareeyaa inuu lacagta guriga uu ku gadanayo inuu awoodo iska bixin karo so inuuna creditna leeyahay shaqadana waa inuu qofka 2 sano ka shaqeynayo exception waa jira oo hadda qofku uu school uu dhiganayay oo schoolka wuxuu uga soo baxay uu hadda shaqada ku bilaabay 2 sano lagama rabo for example haddii oo aad shaqo ka tagtay oo 2 sano ka shaqeynaysay oo intaa shaqadaa ka tagtay shaqo kala bilowday oo shaqadii hore waxaad ka shaqeynaysay aad tan ku bilowday exception waaye taasna ma lagaa rabo because shaqadii hore waxaa laga yaabaa taas inaad uga tagtay lacagta inama tan kale inay ka lacag badan tahay shaqada kale marka exception waa jira oo saas ah laakiin waxaa muhiim ah qofku inuu horta lacagta iska bixin karo boqolkiiba 90 dadka inta badan waa iska bixin karaan lacagta mid labaad dadkeena waa la isla dedegan yahay waa la iska caawimaa marka dadka xataa dad baa kor saaran oo qofkii kala shaqeeyo marka dadkii labada qof xataa hal qof hadduuna awoodin laba qof ay ku gadan karaan marka halkaas rashiido haddaan dul istaagno waxaa jira family iyo caruurtii iyo aabihii hooyadiiba shaqeeyaan marka incomekaas ma la isugu darayaa haddii qaar kamid iyo shaqo ay matalan 2 sano ka shaqeynayeen qaar kamidina ay inka yar ka shaqeynayeen ma la isugu kabaya mise qofka householka ah qofka mas'uulka guriga unbaa la eegaya muddada uu shaqeynayo dad badan waxaa jira oo aabihii hooyadii iyo ilmihii xataa mid ka mida oo shaqeeya saddexdooda guriga ay aan lagu qoray because ilmihii waxaa la fiirinaya hadda ilmihii hadduu iskool dhiganayo hadda iskoolka kasoo baxay ama asoo jaamacadda ku jira uu part-time shaqeeyo part-timeka shaqada uu ka shaqeynayo 2 sano ka shaqeynayo incomekaas waa la isticmaali karaa waa lagu dari karaa familka incomeka midda labaad saa ogtahay dadka soomaalida waxay u badan yihiin dadka self employer weliba businesskan transportationka aada ugu badannahay waxaan kaloo ogeysiinaynaa dadka marka oo adiga ay kugu tala jirto inaad rabtid inaad guri gadatid inaad qof oo maaragtay taxiga si fiican u xareeya oo macnaha wixii advice ku siin kara inaad aad heshid oo aad ama annaka xataa intaad maaragtay aad taxiyada iyo wixii xareyn aad consultation ku siino oo aan kula hadalno oo sidaa wuxuu rabtid meesha guriga ka rabtid inta guriga qiimihiisii yahay waxaasoo dhan aan ka wada hadalno marka laakiin waxaan kuu sheegaya dadka inta badan way awoodaan inay guri gataan laakiin meeshii ay u mari lahaayeen ma oga bayna ogeyn creditkuna dadka inta badan dad credit kaarar qaato uma badna laakiin creditku wax weyn oo dhib keenaya ma aha waa wax oo la abuuri karo laakiin waxaan la abuuri karin waa income cabdirashiid intaan intaa ka bixin dhinaca creditkana ma la eegayaa scorekiisii 700 iyo waxaa ma la eegaya aad baa loo eegayaa creditka because hadda saan kuu sheegay sharciyada
qofku waa inuu credit intaas gaarayo leeyahay income-ka uu guriga ku gadanayo inuu awoodo weeye laakiin ogow creditku qofka si walba creditkiisa ha u xumaato creditku wax oo macnaha la dhisi karo ma aha wax oo aan waxba laga qaban karin laakiin qofka hadduu credit fiican leeyahay credit ugu fiican uu leeyahay laakiin uu income lahayn guri ma gadan karo waa qof income leh inuu familkii wax la dhaho laba arrimood baa halkan Rashiid ka soo baxay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay jecel yihiin su'aasha in aad iyo aad uga jaahil bixisaan inuu qofku 2 sano hal shaqo ka wada shaqeynayay mararka qaar way adkaanaysaa waxaa jira dadkeenu inta badan dadka shaqooyinka la yiraahdo xirfad unskill shaqooyinka ah warehouse-yada oo kale dad waxaa jira ka shaqeeya warehouse-kan sanadka kale saas oo kale oo wixii uu meerta galo marka dadkaasi lacagna way haystaan dabcan sanad kasta way shaqeeyaan marka iyaga sidee ula xalinaysaan arrintooda hadday yidhahdaan annaga lacagtiina lagu xidhay waa kan creditkii waa kan hanoo eegina shaqada dee waa nala eriyay oo kale matalan oo shaqada kale aan bilownay marka wax annaga nagu xidhanna ma ahan kambanigina anytime ayuu lay off ku siin karaa marka arrintaas sideed waa su-aal fiican waa kowsar laakiin wax walba horta waqtiyay leedahay hadda waqtiga lagu jiro waa wax la dhaho booming economy waaye qofka hadduu rabo shaqo inuu helo unemployment I think inay maraysa hadda 3% or maybe even lower stateka Minnesota marka dadka Soomaalidana runtii annagu waxaan aragnaa hadday inay dad shaqo la'aan badan oo aan aragno ma aragno haddayna shaqadii ka tagaan waxaa laga yaabaa shaqo kale oo ka xoogaa lacag badan inay bilaabaan ama sidaan kuu sheegay dad badan transportationka ka shaqeeya inkastoo dad badan oo professional hadda dadkii hadda inta ku koroo dhan jaamacadaha hadda kasoo wada baxeen all of them professional jobs haystaan maasha allah communitygeenu waa community oo xataa marmarka qaarkood cadaanka markaan la sheekaysanayna ayna dhahaan Soomaalidiina haddaa timaadeen meel walbaana gaarteen marka dad anaku dadaal badan baan horta hadii si loo fiiriyo aad baan u dadaalnaa hadda mid haddaan kaaga hadlo hadda waxaa jirta company la Amazon oo hadda ku yaala magaalada halkaas oo u jirta Shakabi dad badan oo Soomaaliya ka shaqeeya annaga hadda waxaa jira dad badan oo meeshaas dhowr qof oo ilaa 5 qof gaaraya oo aan guryo kala gadnay that area jira waxaa jirta also oo company kale oo aan la shaqeynayno ilaa 180 guri ka dhisaya meel u dhow Amazon headquarter-kooda oo Shakabi ku yaala dadkaas oo kale hadda lacag fiican bay qaataan shaqadoodu waa shaqo oo permanent ah lay off wax oo hadda oo soo socdo looma jeedo dadkaas oo kale hadda 2 qof waxaa laga yaabaa hal family 2 qof inay isku meel ka shaqeyso dad badan aan ka shaqeeyaan marka labadaas qof oo kale hadda waxaa laga yaabaa aad way awoodaan guri ayaga ay leeyihiin inay gataan inay ayaguna nala soo xiriiraan dadkii meeshaas ka shaqeeya in anagu guryahaas meesha ka dhisayno oo dad area shaqadana aad u daraf garay 40 minutes iyo wax ka badan marka haddii xataa in awoodin dadkaas sababtay dadka anagu dhibta ugu badan aan aragno shaqada ma aha dhibta ugu badan aan aragno waa dadkii ma awoodaan lacagta hore oo carbuunta oo la dhigayo inayna haysan sababtay dadka inta badan dad badan baa ku xiriira ay xudiraan wadankii marka lacagta inay ku aruuriyaan down payment-ga waxyaalaha ugu adag waay taasna solution baan u keenay in lacag aan laga rabin oo la dhigayo inaan u keeno oo guarantee ah oo ayna gadaal u bixinayn interestna lahayn marka especially dadka ka shaqeeya that area oo companyga Amazon u shaqeeya inay nala soo xiriiraan inaan areadaas guryo badan ka dhisayno company ka dhisaya aan la shaqeynayno oo companygaas lacagtaasna laga dhigayo waa arrin aad iyo aad u muhiimsan halka aad daawadayaal iyo dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda KL way 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Mareykanka maanta barnaamijka waxa ay marti inoogu ah Cabdirashiid Cumar oo ah nin markaas madax ka ah aqoon-yahan oo ah qaabka iibinta guryaha waan rajaynaynaa dadkaas uu maanta inooga sheekeeyay ee area u dhow iyo waliba asxaab kale iyagu lacagtii waaye ay down payment-ka iska dhigi lahayn ama lacagta hore ee laga rabo inay la soo xiriiri doonaan dabcan adressada gadaal baan idinka soo sheegi doonaa barnaamijka isgaarsiiya si walaalada kale ee Soomaaliyeed iyaguna u baahan ay markaa fursadan oo kale u helaan
waxa kale oo ay real estate ama barnaamijkan uu maanta inoo wado Cabdirashiid ay heli karayaan estate-kan aad deganahay hareerihiisa oo dhan guryaha meel walba aad ka calmato dabcan waad heli kartaa iyo waliba waxaan ka marnay kontonka estate ee dalka Mareykanka ka kooban yahay meel kasta oo aad marka adigu ka calmato in laga gacan qaban doono Cabdirashiid haddaan u soo laabano dhinacaas su'aalo badan bay dabcan dad badan oo daawanaya ay qabaan ama ay dhageysanayaan waxoogaa dadka qaar ayaa isweydiiya lacagta interest ah ee ganacsiga oo aad ay tahay uga fogaadaan Soomaalidu marka arrintaas xalkeedu ama qaabkee idinku u sameeysan horta taas waa su'aal oo qof walba isweydiinayo horta mid ugu horeysa inaan dadka anagu u sheegno waa anagu real estate baan marka qaarkood dadku aan soo wacaan war guryaha gadaysa ribo ma leeyihiin gurigu ribo ma lahaan karo gurigu waa real estate-ki waa gurigii waay gurigii finance marka anagu real estate baan nahay hadda companygii guriga kula dhisay guriga dhisayay guriga kula raadinayay wixii real estate-ka dhan ku saabsan baa anaga shaqadeenu waa taas laakiin waxaan marka qofku noo imaado qofka hadduu wixii asaga cash gacantiisa ku haysan waa inaan gurigii aan la gadnaa moogtahay marka qofka hadduu dhaho dadka qaar ayagoo oo bangiga warqadoodii ka watay noo imaadaan gurigiina la raadiyay dhahan gurigaan la raadinayna hadday dhahaan niyo anigu meelaha waxba ka bilaabo ma aqaan hadda guri inaan gataan rabaa creditkii wixii markaan u fiirno uu dhaho islamic financing aan rabaa islamic finance saddex banki oo islamic finance Mareykanka sameeya aan lama shaqeyno laakiin qofkii aan lacagti qofkii aan u dirayna waxaan leenahay companygaas islamic financing sameeya adiga wixii ha kuu soo dhameeyaan markay wixii usoo dhameeyaan oo incomekiisii creditkiisii wax walba lasoo baaro oo wixii loo soo ogolaado markaas anagu ugu soo noqonaya markaas ama gurigii loo dhisayay ama gurigii dhisnaa oo lala raadinayay aan la raadinayna laakiin ogaada macnaha dadku inay ogaadaan waayo real estate-kii iyo financing-kii wax isku xiran ma aha midda labaad guri markaa gadanaysid Mareykanku sida wadankeena hadda wiil baan la hadlay oo real estate oo Soomaaliya iyo Kenya iyo wiilal guryaha ka gala waxaan u leeyahay waxaasoo dhan ma qabano anagu meelahaas ma marno hadda Mareykanka markaa guri ka gadanaysid 5 company oo kula shaqeynaysa company guri kula raadinayo kula dhisaya company lacag ku siinaya oo lacagta ku finance gareynaya company title ku kala wareejinaya oo adiga ku soo baaraya gurigan iyo dhulkan iyo waxaan aad gadanaysid inay waxba ku jirin oo titlekii oo clean gacanta kaa saaraya company kala jira oo inspection sameynaya oo gurigii baaraya inuu gurigan guri lagu noolaan kaliya inuu gurigan guri wax ka soo baxaya uu yahay company kala jira oo la dhaho appraisal company oo bangiga maadaama aad lacagtii ka qaadanayso bangigu wuxuu soo dirsanaya company kale oo la dhaho appraisal company oo gurigii qiimeynaya maadaama marka maadaama bangigii adiga kaa bixinayo 9% oo adiga jeebkaagii 10% kala soo baxaysid bangigu they want to make sure in oo lacagta adiga ay ku invest gareynayaan guriga aad gadanayso it's worth it that value marka waxaas dadkaas oo dhan kula shaqeynaya marka ma aha hal qof kaliya ma aha waa 5 company marka guri gadanayso waxa kula shaqeynaya Mareykanku wuxuu ku fiican marka guri gadanayso hadda special sharciyadu meeshay marayaan hadda dawladdan hadda Mareykanka jirta dawladdii ka horeysay baa sharciyada aad u adkaysay dadka mid la waxa ogeynayna maanta hadda guri gadanaysid wax in uu qof iska ka daba mariyo ama wax ka qadama laga yaabo because sharciyada waxa loo adkeeyay bangigu inuu sharciga gafi karin real estate sharciga gafi karin appraisal sharciga gafi karin maxaa la dhahaa inspection sharciga gafi karin marka qof walba sharcigii loogu talagalay oo loo dejiyay inuu raaco iyo jidkii waxaan loo mari lahaa inuu u maro waa tahay dhageystayaal daawadayaalba waan rajaynaynaa barnaamijkan inuu aad iyo aad muhiimadiisa iyo miisaankiisa u leeyahay cid kasta oo markaa hamiga ku haysa ama waxoogaa isla ama waad gaarsiisan tahay xilliga aad markaa guri iibsan karto waan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan real estate mar walba diyaar bay idin yihiin iyagoo weliba fursadda kale ee aad muhiimka u ee maanta aniga laftarkaygu xataa aan madaxa u raxa ay tahay in lacagtii down payment-kaba lagaa bixinayo oo ay weliba lacag grand money tahay grand money-ga waxaan u naqaanaa lacag marka aan lagaa rabin hadhow inaad celiso
marka aad iyo aad baan u rajaynayna ciddii su-aalo qabtaana wayna la soo xidhiiri karaan marka insha allah barnaamijkan faa'iidadiisu leeyahay barnaamijka maxaa cusub waa idinku soo dhaweynaynaa daawadayaasha iyo dhegaystayaashaba waa soo gabagabaynaynaa barnaamijka waqti badan waana rabadaan muddo badan baan dabcan qaadanay rashiido maxaad markaa ugu dambeyn bulshada dabcan waan qabanaynaa